maalin waxaan wanaagsan dhammaantiin meel kasta joogtaan ku soo dhawo kanaalkan YouTube-ka ALS online oo idin soo diyaariyo aniga Cali Maxamed Usmaan Cali Baashi. Videogan maanta waxaa ku soo qaadan doonaa su'aal uu soo weydiiyay mid ka mid ah walaalaha ku taxan kanaalkan YouTube-ka. Su'aashiisan waxayna leedahay waxaan rabaa inaan helo buundooyinka ardayda fasalka dhigato. Okay, waa maasantahay su'aashan waa su'aal muhiim waxaana u fahmay in aad rabto in aad grade-ka maadaama heshay buundooyinka waxay u qalmaan sida ABCD ama bata jaxa sida loo soo saaro. كورنتان gudagalin videogan maanta hadii aad ku cusubtahay kanaalkan YouTube-ka ALS online fadlan soo dhawow hadii jeer kanaalkan waxa ku soo qaadanaa videoyaal lagu barnaa teknoolajiyada videoyaal dhiirigelin iyo kuwa aan naga soo dalbataan oo video ka soo sameeyno waana ku mahadsantihiin sida wanaagsan engagement u sameeysan. Okay, videogan maanta sida soo sheegnay waxa ku soo qaadan doonaa sida buundooyinka loo helo ama gradeska ardayda fasalka dhigato. Si aad ugu shaqeyn waxa isticmaali doonaa functionada mid ka mid ah functionada ugu isticmaalka badan oo loo yaqaan VLOOKUP. waxaan laga helaa lookup references page-kaas ama markaa joogto formulas qaybtan ayaa ka helaysaa VLOOKUP. Okay, VLOOKUP videogan horna waan ku soo qaadanay sida loo isticmaalo. Maanta waxa uu isticmaali doonaa sida buundooyinka ardayda loo soo saaro. qaybtan sare waxaa ku haysanaa table ama maaragtay shax oo maaragtay sheegaysa ardayga buundada iyo waxay u qalmato. eber haddii uu keeno qofka F ayuu helayaa oo ugu sareysa 100% hadduu keeno wuxuu helayaa A. waxaa lagu cabiraa percentage. waa tirooyinkan waxuu ka bedeli karnaa qasab ma ayna sida u qornaadaan laakiin waa sida standardka inta badan. hadda waxaa rabnaa ardaydan sida randomka u soo qornay Ali Axmed maada xisaab ayay galeen buundooyinkan kala duwan ayay keeneen. waxaa rabnaa in aan ogaano waxay u qalmaan. hadda markasta muu baahna inaan fiirno 49 inaan inta ka raadino buundada u qalma inaan gelino xoogaa waxay noqonaysaa waqti dheer ayay qaadan kartaa sidaan ardayda way kasii farabadnaan karaan. Okay, marka waxaan sameynaynaa formula ayaa isticmaalinaa oo aan ku sheegnay VLOOKUP. markaa formula qorayso waxaa u baahan tahay inaad ka bilowdo markasta equal control shift ayay qabanaysaa equal iyo zeroda equal ayay ku soo baxayso kadib waxaa qoraysaa VLOOK markaa qorto hoos ayuu kaa siiyay Excel kadib waxaad taabanaysaa tab. markaa tab taabato hoosta waxaa kugu qormay VLOOKUP functionka qeybaan kala duwan ayuu leeyahay inaad geliso VLOOKUP value, table array, column index iyo range lookup. inaa intooda wada geliso ayaa loo baahan yahay mid ayaa usoo qaadan doonaa. ka hor waxaa rabnaa inaan helno ama lookup tirada la fiirinayo ardayga meeqoo helay marka hore fiirinayna waxay tahay waa godkan waa C12 ama A12 kaas ay taabanaysaa kadib waxaa sameynaysaa semicolon laba dhibac dul saaran markaa dhigto waxaa lagu dhahayaa table array. tableka aad rabto in lagu fiiriyo ama lagu base gareeyo buundadan intuu ku yaala soo sheeg. inta ayaa calaamadeynayna tablekan oo dhan. markaa calaamadeyno kadib waxaa dhigaynaa semicolon waxaana la weydiiyey godkee rabtaa column index. column index waxaa lahaa labadan god kow column index 1 column index 2 badanaa waxay xigaan ama soo dhacaan table arrayga ay ku xigaan. waxaa rabnaa godka labaad tablekan godkiisa labaad kan waa kow kan waa labo kan saddex ayuu noqon lahaa haddii wax kusii jiri lahayn. marka waxaa rabnaa inaad ku fiiriso percentageka ama letterskan xarfahan ku jira godka labaad. maskada darteed waxaa qoraynaa labo. markaa laba qorna kadib haddana waxaa qoraynaa semicolon kadib waxaa leenahay maxaa rabtaa inaad ku qorto booska. waxaa leenahay true or false. exact haddaa rabta buundada oo sax ah haddaa rabto false ay dhigayso. haddaa true wax u soo dhaweynaya haddii uu keeno ayaa ka dhiganaa true kadibna bracketka u xirinaa. Okay, hadda wuxuu helay qofkan Cali xisaabta maadada 49 maadaama uu keenay wuxuu helay F ayuu helay. Okay, markaa fiirno 55 ayaa ugu yar maadooyinka wax lagu helo 55 markaa keento D- ay helaysaa. Okay, F ayaa helay. hadda markaa fill handlekan qabano oo aan hoos u jeedno formulka aan ku koobiyeyno godadka hoos oo dhan u fiirso waxa noo soo baxay. kan C ayuu helay 73 C boqolka A niti B
laakiin kan NA ay soo baxday qalad sida ku dhacday marka forgotka waxa u jeedaa table-kii hoos ayuu u dhaqaaqay marka ma rabi waa qalad waxaa rabaa table-ka markasta inuu qaybtan sare joogo si uu joogo godadkan dhan waa qalad hadda u fiirso meel qaldan ayaa wax ka fiirnaan si aa u saxo waxa u baahnaa marka hore waa iska tirtirayaa formulka marka ku laabto waxa u jeedaa formulka waxa u baahanahay inaa haysto dollar sign-ka inaa calaamadda dollarka inay ku jirtaa letteryaashan ama B3 iyo C9-ka okay marka taabanaa shift 4 waa inay xirnaadaan inaa maaragtay godadkan inay meeshooda taagnaadaan ay rabnaa C hortiisa iyo C9-ka dhexdooda dollar sign-ka ayaa gelinaa kadib waxaa taabanaynaa okay hadda markaan table-ka waa maanta oo dhan table-ka ma isbedelaya meeshiis ayuu taagnaanaya markaa hoos u jiido tusaale ahaan oo fiirsa hadda way ka baxeen wixii qaladaadka ahaa hadda markaa ee taabtoga table-ka ayuu taagan yahay meesha la calaamadeeyey ma ka dhaqaaqayso okay si hadda buundooyinkan haddii wax ka bedelo haddii ka dhigo 65 isbedelaysa 100% waa si maaragtay automatic ayuu maaragtay isku bedelaya okay videogeena maanta oo ahaa mid iska kooban oo aan ku soo qaadanay sida looga shaqeeyo ama loo helo buundooyinka ardayda markaa rabto in aad formula u isticmaasho si aan ugu shaqeyno waxaa isticmaalnay formulka VLOOKUP walaalkana soo weydiiyo waxaa leenahay waa mahadsan tahay dhammaan inta ku taxan kanaalkeena idinkana waa mahadsan tihiin fadlan nagu taageer ina like badan saartaan videoyashan si uu gaar asxaabta u baahnayd waana mahadsan tihiin waxaan inoo balan insha allahu video xiga